PayPal waxa weeye waa meesha ugu badan oo mar walba lacagaha online-ka ka samaysa lagu soo diri karo uguna sahlan. PayPal waatana account-kayga waxaan rabaa marka inaan ku tuso qaabka lacagahan lagu soo diri lahaa account-kan aad samaysan lahayd. Halkan arkaysa activity la soo dhaafay, waxaan lacaga waa qaar baxay oo aniga wax purchase gareeyay iyo qaar ay soo galay, waxyaalo badan oo kala jiraan, qaarkan ku soo galay, kuwa kale waa kuwa iga baxay. marka waxaan rabaa inaan waxaan ku tuso qaabka hata loogu xirto wallet-ka iyo loogu xirto. arkaysa meeshan qaybtan arkaysa bangi igu xiran tahay, halkan waxay ku xiran tahay visa card-kayga, waxaan dhamaalo ku xiran tahay, waxaan kor meeshan waa balance-kayga. waxaan rabaa link kaarka qaabka loogu xiranayo inaan ku tuso, inaan kaloo ku tuso qaab kaleeto oo loogu xirto waa bangiga asana loogu xirto. marka haddii u baahanta marka inta waxaas inaad sii ogaatid oo PayPal artina ogaatid videogaadi meelna ka aadin. haddii aan bilowno marka halkan waa PayPal, haddaad paypal.com aad soo gashid waxaa weeye halkan imaanaysa kan ku keenaya mina account card ku tusa waa kasoo baxay, balse waxaan rabaa inaan ku tuso qaabka loo create gareeyo. waxaa weeye save way to pay online waaye, si ay isku xaysinayaan waana waxay yihiin. marka mar walba waxaad isku dayaysaa in wixii aad gelisid halkan arkay sign up for PayPal uu leeyahay. PayPal-ka marka waxaa weeye waxaa arkaysaa qaybtan lambarka lagaaga baahan inaad gelisid. halkan lambarkaygaan gelin doonaa, lambarkaygaan geliyay oo free wadanka wato. kood baa ii soo dhacaya, kood telefoonka igu soo dhacaya. telefoon markuu koodka igu soo dhaco, koodkaasaan gelinayaa. koodka ii soo dhacay, telefoonka gacanta ku haystaa. koodka waan gelinayaa waa 2344416. horuna ka shaqeynaya koodka kaas ayaga soo direen. marka ila soco waayo PayPal waa meesha ugu badan oo mar walba u baahan tahay lacag lagu soo diro iyo online-ka. haddii marka email address-ka lagu weydiiyo, email address-ka kana gashan kartaa, magacaada iyo kala meelaha ka imaaday already sign in. marka arkaysaa in horey aan u leeyahay. just a minute kan waa tiraya, waxaan ku qorayaa somali-online-money@gmail.com. password-kayga waa arkaysaa password-ka inuu isleeyahay. password-ka qasab labadan password inay isla ahaadaan, calaamada tiga ku fursan labada password isleeyihiin. haddii laakiin labada password ay islahayn calaamada waxaa weeye isdaba maraysaa labada tig ma fulis. horey waan ugu soconaynaa. halkan waa arkaysaa wadanka inay ku qoran tahay Uganda, date of birth, waqtigan dhashay ku qoran, address-ka laga rabaa, town, village, hadba meesha joogto. marka waxaa weeye haddii Soomaaliya joogtid waad ku qoran kartaa meeshan Kaxda iyo Maka al-Mukarrama, waxaad ku qoran meeshan Muqdisho ku qoran kartaa, waxyaalo badan halkan ku qoranaysaa. wax dhamaalna way ku saxmanayaan. ani meeshan hadda waxaa iska dhahdaa 0101 waxaa weeye sorry meeshaas date of birth, address line iyo address 2 waxaa weeye wax dhamaalo ay isa galaysa. Campbell Central waa diidan tahay. mail address marka waxaan leeyahay waa arkaysaa marka wax dhamaalaba inay soo gelinayo stay login kan. haddii marka arkaysaa marka wax dhamaalaba inay isugu ka aadayaan kabacdi. marka meesha stay login waxaa weeye in micnaha mar walba aad markaad computerkaada imaadidba in hor ka gasho, laakiin ma fiicno. waxaa fiican wixii maadaama mar walba waxaan lacag ay tahay in adigun password mar walba hor ka gelisid. midaan laakiinse waa inaad qaybtan waa inaad akhrisaa privacy use agreement, adiga waa inaad akhrisaa. isku agree hadhihin adoo akhrin waayo waxyaalo badan waxaa jiro oo ay sheegayaan ood u baahan tahay in hadda soo akhrisid. laakiin annaka video aad nooma qoranaya inaan wax soo qorno. you are in waxaa la yidhi meeshaan arkaysaa maynaya inaa meeshaad waxaa la yidhi waad ku jirtaa send money and shop with ease. oo arkaysaa mayna PayPal-kaygii daqiiqado gudahoodan ku samaystay shop with PayPal. hadda intaan dhaha get started ama send money haddaan dhahan horey baan ka baxay oo horey bay ka soconaysaa. kaarka marka haddii kaard aad ku gashanaysid qaybta kaarka haddaan ku geeyo tusaale ahaan meesha account-ka hore aan ku lahaa link bank ku dhufanaysaa. link bank ma ku dhufatid wuxuu ku keenayaa meesha qaybta bankiga link kaarka waa kana. kaarka marka kaarka CV-giisa card number hadduu yahay hadduu kaarka tusaale ahaan 48 wax iska bilaabanayo mar walba wuxuu noqonayaa visa card uu noqonayaa. ayakana kuu sheegaya marka sameynaa visa card visa card adiga kan visa card qabin mastercard-kaada meesha waa lambarka farada badan oo dhowr iyo 10 ko 8 ma aqaan wuxuu yahay farada arada ka badan aad gelinaysaa. meeshan waa meesha expire date-ka month iska rabaa tusaale ahaan bisha labaad alaya 2025 ama 26 ka dhacay alaya waa ka sukuna. security code-kan waxaa weeye meesha qaybta dambe oo ku qoran tahay security code-ka meesha waxaa weeye 3 lambar ku qoran oo qaybta dambe hadda arkaysa kugu calaamadeynayo mastercard-kaada ama visa card-kaada geeska xagga gudinaysaa waadna arkaysaa koodka meesha ku qoran. saasuna wuxuu kugu xiran yahay account-kaada iyo PayPal-ka saas isku xirnaanayaan. marka waa sida ugu sahlan loo samaysto PayPal-ka. marka haddii PayPal hore ku dhibaneed PayPal saas loo samaystaa. waa arkaysaa umayna PayPal aniga almost waxaan isticmaalaa umaleynaya 2 sano camal inaan isticmaalo umayna PayPal hadii ka badneen. awal hore waxaan isticmaali jiray Payoneer aan isticmaali jiray ilaa haddana waa isticmaalaa. hadda waa arkaysaa meelahan waxa yaalaan aan gato weeyo oo maxallay business kan u isticmaalay waxyaalahan kale waa lacag kale soo diray oo ay kala qolo kale aan loo waxeeyay. marka waa arkaysaa umayna sida loo isticmaalo waxa kuuma dhinno.
marka haddii aragtid in micnaha Gmail qaabka loo sameeyo ayadana aad ogaatid video qaybtan ku soo dhigay ayadana daawan kartaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.